waxaas wax dhaqankeena uu yahay ma aha meedina wax kama tuugin naqaano dadna wax kama tuugin naqaano blanka caynkaas uu tuugana ma naqaano warbaahinta Soomaalida wehel ay u noqonaysaa arrimo ku saabsan xuquuqul insaanka iyo ka hadalka bulshada baahiyeysan oo bartamooye beer kale aan ka qodan baraadiriga arrintan waa dhacdo ku saabsan ka hadalka arrimaha bulshada iyo ku been sheegida awoodda alla balse ma aha waa ka kaaftoon oo kamera wixii ku soo maray Ruwayda Yuusuf Yabarow waa shakhsiga inuu warbixintani diiradda ku saarayno iyo waxa ka ogaashaha arrimaheeda gaarka ah ka hadalka baraha bulshada waa astaan u noqoshada wax aan laga kabsan oo bilow u ah kala taga ama hayaanka dad reer ama bulsho Yuusuf Yabarow oo ah aabaha dhala Ruwayda ayaa wax walba beeniyay oo bulshada u bayaaniyay cadeymo ku saabsan arrimaha qalafsan oo lagu baahiyay bar kulanka bulsho ee Facebook inta magacayga muuqayga taqaana oo inta iga arkaysa waa salaamantiin salaanta hawadiisa soo marsay meel kasta joogtiin waxaan rabaa in inta ka cadeeyo shalay qalad baa dhacay qaladka dhacayna waxaa sameeyay gabar aniga aan dhalay ayaa sida la sheegay anigu waan baahan ma fiirso ma dhageysto aleeyay shalay waxay ka hadashay meediyahan ka hadashay geedkan ka hadashay oo waxay tiri aniga hadaa la kulmo aabahay baa agoon baan aabahay baa dhintay oo hadaa la kulmo ilmihii uu ka tagayo yaraan haya iyo hooyaday baan haya waa baahanahay in la soo gargaaro ay tiri leeyaan waxaan u dirsadana ma aha waxaan ogayna ma aha waxaan maqlayna ma aha waxaas wax dhaqankeena uu yahay ma aha meedina wax kama tuugin naqaano dadna wax kama tuugin naqaano blanka caynkaas uu tuugana ma naqaano sida waxaas oo saas loo blangayo geedaha lagu duubayo oo adduunka loo wargeliyayo ma naqaan dadka loo baadigeeyayo leeyahay dada ma isku cadilin oo dad saas ku qof jiiso qof uriyano qof saaro leeyahay ma naqaan shaqaas Allah ma galno ma naqaano laakiin midaan meel ka keento ma naqaani shalay iyada nagu gaado dadka hadii la ku bayaan saan nagu sameeyay ma kulanteen iyada arrintan markii ku soo shaabaxday ama aan qashay ka dabo wada hadal ma la sameeyay oo weydiiday sababta iyo waxa marka ku dhaliyay inay bulshada soo horisay waa saaka saragna maxaa ku qabta saacadteeda oo anigana idishiyo mutaqana nolosha iga qaaday beenta noo sheegtay ummadana noogu ceebisay wayga naqatay tiraamo laakiin wax ku kala fahmaan ku sheegay ma hawal fi mish wayga naqatay tiraamo kuma ekeen oo waa dhaliyadii reer Yabarow iyo digniino ku saabsan beegsiga duruufaha jira iyo ka gaashaamida dulqaad tagay oo da'dooda aanay arag Assalaamu alaykum Soomaaliya waani salaamay idin ahaantiinba meel walba joogtaan maanta waxaan halkan u soo fariistay inaan ka hadlo video shalay ay soo duubtay Ruwayda Yuusuf iyo hooyada dhashay oo magaceeda ku sheegtay Mariin Shuurow Ruwayda shalay videoga waxay ku soo qaadatay halay soo caawiyo aabahay wuu geeriyooday danana haysato shaqo ma haysto shaqadan doonto waxa la igu dhahay waa ina isaf garanaa marka ani Ruwayda waan aqaana adeerkay aabay la dhashay dhalay waa walaashay xalayaan arkay fiidiyoyaasheeda markaan arkay aaba geeriyooda ee leedahay wiligeeda fiidiyo iska soo duubi jirtay wiligeena kama soo hadlin balse maanta waxay igu dhaliyaa waxay tahay inay inas fiidiyo soo qaatay ee tiraado aabahay wuu dhintay ee halay soo caawiyo iyadoo aabaheed uu nool yahay ee xalay tool aan soo arkay inay tiraado aabahay waa dhintay halay soo caawiyo tan kale tan maamada ee tiraado Mariin Shuurow waa la dhahaa Mariin Shuurow lama dhaha maamada Sacdiin Nuur Ibraahim la dhahaa gabadhana aabaheed uu nool yahay waa ka inta fadhiya way la jooga maanta xalay arrintan galay oo markaan arkaan ka xanaaqay Yuusuf Yabarow uma baahno taakuleen uma baahno tuugsi wuu ka dhan yahay ilmihiisa dal iyo dibad jiraan qaraabadiisa joogto uma baahno waa dhargan yahay wuxuuna ka dhashtay cid aanan baahnayn meel aanan la soo dhigin u baahnayn gabartaas walaashay ama eedadeedna mar aan ahana wixii ku qaaday horta iyada baahida heesa xageeda ma sheegi karno annaka qof noo dhaqan bay ahayd waxaan sheegayaa hooyadeed aniga wax ka sheegi maayo laakiin dhaqanka ay wadato hooyadeed baa ku wado waxaana keeni kara labada qofood hadii ay isqabin amba ay isla joogin xanaana la'aantan habarta xageeda ka timiday ilmaha yar yar oo qaaban
fiidiyowga soo qabtay gabartii dhashay waxay jirtaa Turkiga uma baahno tuugsi ma rabin wax ma rabin gabartaas maxay u geysay fasahaad waxaan ka rabaa walaalkay wiilkay ka duubay oo shalay ay keensatay inuu galiidkaas oo ka baxsho oo meelaha oo dhiga ka baxsho dadka walaalaha ay qaadanayaan fiidiyowgaas wareejiyayaan waxaan ka rabnaa inay naga dhaafaan ay ka saaraan dhaqanka Soomaalida waa wada noolaasho iyo arrimo ku saabsan ilaali oo afmeer caadada iyo hab dhaqanka bulsho oo Soomaaliyeed leedahay